Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalayaal kusoo dhawaada koorso programming language oo aan ugu talagalay dadka bilowga ah ama daneynayo inay wax ka bartaan programming language. Python programming language ayaan rabnaa maanta inaan halkan ku bilowno. Waxyaabaha aan ku doortay ayaa waxaa ka mid ah waa programming language aad u fudud, muhiimadeeda gaarka ah ay leedahay. Python programming language waa programming language aad u fudud oona aan kula talinayo qof walba bilow ah inuu ku bilaabo. waxayna ka mid tahay the fastest growing programming language in the world ayay ka mid tahay. waa programming language-ka kuwa uga waa dhaqsiga badan oo sida xawliga ku socdo ayay ka mid tahay. waa number 1 haddii loo fiiriyo sida xawliga horumarka ay sameynayso. Python programming language sababta keentay inay caan noqoto waxaa ka mid ah waa programming language aad u fudud waay marka koowaad. marka kalena waxaa waaye markii loo fiiriyay developerska isticmaalayo, haddii loo fiiriyo dhanka kambaniyada isticmaalaya sida Google-ka isticmaasho, waxa kale isticmaalo Dropbox ayaa isticmaasho, YouTube-ka isticmaalo, NASA ayaa isticmaasho iyo in badan oo kale. Python programming language waxa lagu doortay ayaa waxaa ka mid ah problem adag oo qofka ama hadduu isticmaali lahay programming languageska kale sida Java programming language hadduu isticmaali lahay ay ku qaadan lahayd boqolaal line inuu ka xaliyo problem ayay markii la joogo Python programming language waxaa lagu xalinaa wax ka yar 3 line 4 line 5 line ayaa lagu xalinayaa. marka sababta lagu doortay waxa waaye waqti badan kuuma qaadanayso inaad problem xaliso, waqtigaagana wuu kuu seebarooyaa, problem culeyskiisa leena waad xalinaysaa. inaan ku dheeraado marka magaceedu waxaa la yiraahdaa Python ayaa la yiraahdaa. sababta Python looga bixiyay waxa waaye qofka oo programming language kan soo saaray ayaa waxaa filim ku jiray oo la yiraahday multiply Python ayaa loogu magac daray magacaas meesha ka imaado. waa cross platform waaye. cross platform waxa loo leeyahay operating system ayay la shaqeynaysaa hadday noqon lahayd Mac operating system ama Linux ama Windows-ka any operating system ayay ku shaqeynaysaa. waxaa kale lagu magacaabaa multipurpose programming language. sababta loogu magacaabayna waxaa waaye meel walba ayaad ku isticmaali kartaa. sidaa waxaa ku isticmaali kartaa machine learning ayaa ku isticmaali kartaa ama artificial intelligence wax loo yaqaano. waxaa kaloo ku isticmaali kartaa graphical user interface, software developerska ayaa isticmaalo, meel walba ayaadna u isticmaali kartaa. waxayna ka mid tahay programming languageska kuwa uga easysan ama kuwa ugu fudud ayay ka mid tahay. inaan aad ugu dheeraado hordhaceeda waa programming language aad u qiimo badan oo features badan leh waaye. marka waxaan usii gudbaynaa software-da aan u baahan doono waaye Google-ka galaysaa, waxaad ku qoraysaa python.org ayaad qoraysaa, midka ugu horeeya waaye, gudaha gasii galaysaa. marka waxaa kuu soo baxayso page-kan ayaa kuu soo baxayo. marka waxaad galaysaa jack u siiso waxaa kuu soo baxaya download Python 3.7.3 la soo deg ayuu ku leeyahay. kan waa Windows-ka loogu talagalay, kana soo degsanaysaa. haddii aad Mac operating system aad isticmaalaysidna Mac ayaad dooranaysaa. marka waa la soo degaysaa, kan waa jack siinaysaa. marka kuu soo dego si toos ayaad ugu shibanaysaa. waxa waaye next case bis waaye, intaas kaliya waaye, wax culeys malaha ku shibashadiisa. kan sidaas aad soo degaysaa. mid kale u baahan tahay waxaa la yiraahdaa PyCharm. marka waxaad soo degaysaa PyCharm ayaad la soo degaysaa. PyCharm waa asna midka ugu horeeya waaye. PyCharm ayaa Google qoraysaa, gudaha u sii galaysaa. kuu soo baxay page-kana kuu soo baxay, waxaad leedahay download ayaad leedahay. marka download aad dhahdo waxa kuu soo baxayo intaan ayaa kuu soo baxayso. Professionalku waa lacag waaye. waxaa kuu fiican marka inaad la soo degto community-ga la soo degaysaa, sidii si lamid ah ayaad ugu shibanaysaa. insha Allah asharka xiga waxaan uga hadli doonaa haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kala noqdo. marka darsigeena soo socdo waxaan isticmaali doonaa waxa loo yaqaan arithmetic operationska in Python sida loo isticmaalo ayaan arki doonaa haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kala noqdo. asharkan intaan ayaan ku soo koobaynaa. wuxuu ahaa kaliya hordhac iyo software-dan sida aad ugu shaban lahayd. insha Allah ta'ala wixii talooyin iyo tusaalooyin waxaad igu soo gudbin kartaan comment. waxaad subscribe isaataan channel-kan oo Some Programmers la yiraahdo. Some Programmers waa channel-kayga waaye oo ashar wali meesha ayaan idinku soo gudbin. inta ashar la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idinku tagayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.